Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyay ee lagu dilo Soomaaliya. Sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho. Waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyay ee waxbarashadeeda oo ay ka qalin jabin lahayd maadada computer science oo la sheegay inay soo dhamaystirto waxyaabihii looga baahnaa qalin jabinteeda. Sagal waxay ahayd arday ku firfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay. Rooble Cibaar Diiriye waa gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho. Wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa Sagal. Wallahi walaal Sagal waxay ahayd kulay arday kamid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas'uulka u ahay. Ardayda waliba hadda waxay ku jirtay qalin jabinayso oo buugga diyaarintiisa ku jirtay. ardaydu marka aad 3,000 4,000 5,000 oo arday aad mas'uul ka tahay qof walba inaad deeply u baratid way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo deeply isku maanan aqoonin, laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda oo kale oo ka wada qayb qaadanay. So qof active oo firfircoon inay ahayd baan xasuustaa. Rooble waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida Sagal. waxaan runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan kamid ah ardaydaadii aad magac ahaan bax ahaan aad wadaagtaan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aad wadaagtaan in aad geeridiisa maqashid aad bay u xanuun badan tahay. waa dareemi kartaa qofku qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo isku yihiin isku institution yihiin geeridiisa markii loo sheego aad buu uga naxayaa runtii. xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda. Allahna u naxariisto kulay intaas qof walba uu dhimanaya xaqiiqdii oo nolosha la isma siinin balse aad bay noo taabatay. Sagal waxaa kaloo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda Radio Muqdisho ee afka dawladda ku hadasha. waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan. waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. barnaamijyadii Sagal ay sameyn jirto waxaa ka mid ahaa barnaamijka maaweelada carruurta iyo dhambaalka iyo salaamaha. Cali Cabduqaadir Cali Michael madaxa wararka iyo barnaamijyada Radio Muqdisho ayaa ka waramaya kartidii hawleed ee Sagal iyo aqoontii uu lahaa. Noloshii Sagal Salaad Cusmaan ay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dawladda Soomaaliya Radio Muqdisho iyo telefishinka ee qaranka Soomaaliyeed. maalintii shalay ayaa kooxo hubeesan magaalada Muqdisho ku dilay. runtii Falastiin inta aan ka aqoon taariikh ahaan Sagal Salaad Cusmaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan. waxay ahayd qof shaqadeeda aad uga caabooneed oo ka adag waqtiyada shaqada mas'uuliyadda ka saaran markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda. Sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysay oo la nooleed carruur hooyadeed ay ka dhimatay oo ilaa iyo 6 ah sida uu sheegay Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen. Sagal carruurta ay korinaysay iyada ayaa u weyneed waxay iyadu qofkii carruurtaasi maaragtay ururka hooyadeeda Allah u naxariistee carruurta iyada ka weyneed 6 carruur ah oo maaragtay kala bax oo isku hooyihiin ayay gacanta ku haysay oo la noolay markastana waxay ku saamaysay in carruurtaasi nolosheeda ay kafaalo qaado ay dabarto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso. waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumar ay ka gaarto. Sagal waxa ay ku jirtay da'deedii 20aad markaas ayna ka soo qalin jabinaysay jaamacadda. waxa ayna dableedii dishay soo afjareen rajadii ay ka lahayd howlaheedii wariyanimo iyo waxbarashadeedii. sidoo kale qoyskeeda iyo walaalihii ay korinaysay ay uga tageen xanuunka geerideeda iyo doorkeedii oo bannaan. Sagal waxaa tabi doona marka ehelkeeda laga soo tago ardadii ay wax la baranaysay muddada iyo dadkii la shaqaynayay intaba. dilkeeda waxa uu qayb ka noqonayaa dilalka arxan darrada ee loo geysta rayidkan waxba galabsan iyo gabdhaha u dhabar adeegaya duruufaha dalka kuna haminaya in ay dalkooda wax u taraan bulshadooda iyo waliba qoysaskooda. Sagal waa gabadhii labaad ee wariye ah ee bilooyin gudahood lagu dilay magaalada Muqdisho. waxaa horey loo dilay Hindiye Xaaji Maxamed waxaanay labaduba wadaageen korinta carruur da'yar. Hindiye waxay ka tagtay 6 carruur oo agoon ah oo ay iyadu ahayd waalidka u shaqo tagayay ee mas'uulka ka ahaa. halka Sagalna ay ahayd ilmaha ugu weyn 6 carruur oo hooyadeed ay ka dhimatay oo rajo ah oo iyadu ay gacanta ku haysay.
ay ka tirsanayd shaqaalaha warbaahinta dowladda Soomaaliya raadiyo Muqdisho iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed maalintii shalay ayaa kooxo hubeesan magaalada Muqdisho ku dilay runtii Falastiin inta aan ka aqoon taariikh ahaan Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd gabar aad u wanaagsan waxay ahayd qof shaqadeeda aad uga caabooneed oo ka adag waqtiyada shaqada mas'uuliyadda ka saaran markastana jecel inay goobjoog ka ahaato howlaha markaasi socda. Sagal marka laga soo tago waxbarashadeedii iyo hawsheedii saxaafadeed waxay gacanta ku haysay oo la nooleed caruur hooyadeed ay ka dhimato ilaa iyo 6 ah sida uu sheegay Cali Michael oo ay wada shaqeeyeen Sagal. caruurta ay korinaysa iyada ayaa u weyneed waxay iyadu qofkii caruurtaasi maaragtay ururka hooyadeeda Allah u naxariistee caruurta iyada ka weyneed 6 caruur ah oo maaragtay kala bax oo isku hooyihiin ayay gacanta ku haysay oo la noolay markastana waxay ku saamaysay in caruurtaasi nolosheeda ay ka faalo-qaado ay dabarto iyaduna ay mustaqbalkeeda ay inta badan ay horumariso waxay gabar hami weyn u haysay dhanka shaqadeeda iyo hamiga saxaafaduna aad maaragtay ugu firfircooneed oo ku taamaysay in nolosha horumar ay ka gaarto. Sagal waxa ay ku jirtay da'deedii 20aad markaas ayna ka soo qalin jabinaysay jaamacadda. Sagal Salaad Cismaan waxay ahayd wariyihii ugu dambeeyay ee lagu dilo Soomaaliya. Sagal waxay ahayd gabar da'yar oo wax ka baranaysa jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho. Waxayna ku jirtay maalmihii ugu dambeeyay ee waxbarashadeeda oo ay ka qalin jabin lahayd maadada computer science oo la sheegay inay soo dhameystirto waxyaabihii looga baahnaa qalin jabinteeda. Sagal waxay ahayd arday ku firfircoon waxbarashadeeda iyo barnaamijyadii kala duwanaa ee jaamacadda ay dhigato ay qaban jirtay. Rooble Cibaar Diiriye waa gudoomiyaha midowga ardayda jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho wuxuu ka waramayaa aqoontii uu lahaa Sagal. wallahi walaal Sagal waxay ahayd kulay arday kamid ah ardayda jaamacadda dhigato ee aan mas'uulka u ahay ardayda waliba hadda waxay ku jirtay qalin jabinayso oo buugga diyaarintiisa ku jirtay isku institution yihiin geeridiisa markii loo sheego aad buu uga naxayaa runtii xanuun adag oo ardayda jaamacadda wada taabatay bay ahayd geerideeda Allahna u naxariisto kulay intaas qof walba uu dhimanaya xaqiiqdii oo nolosha la isma siinin balse aad bay noo taabatay. Sagal waxa kale oo ay muddo la soo shaqaysay idaacadda Radio Muqdisho ee afka dawladda ku hadasha waxaanay ahayd gabar da'yar oo leh mustaqbal saxaafadeed oo wanaagsan waxayna u hanweyneyd inay meel wanaagsan ka gaarto xirfadeeda wariyanimo. barnaamijyadii Sagal ay sameyn jirto waxaa kamid ahaa barnaamijka maaweelada caruurta iyo dhambaalka iyo salaamaha. Cali Abduqaadir Cali Michael madaxa wararka iyo barnaamijyada Radio Muqdisho ayaa ka waramaya kartidii hawleed ee Sagal iyo aqoontii uu lahaa. walaashin Sagal Salaad ardaydu markaad 3,000 4,000 5,000 oo arday aad mas'uul ka tahay qof walba inaad deeply u baratid way adag tahay. Sagal aniga ayada si hoose oo deeply isku maanan aqoonin laakiin waxaan xasuustaa barnaamijyo oo jaamacadda bandhiga jaamacadda oo kale oo ka wada qayb qaadanay so qof active oo firfircoon inay ahayd baan xasuustaa. Rooble waxa uu sheegay in ardayda iyo maamulka jaamacadduba ay taabatay geerida Sagal. wax xanuun runtii arday aad isku meel wax ka wada barataan kamid ah ardaydaadii aad magac ahaan aad wadaagtaan hal meel aad wax ka wada baranaysaan oo magaca jaamacadda aad wadaagtaan in aad geeridiisa maqashid aad bay u xanuun badan tahay. waa dareemi kartaa qofka qof uu yaqaana ama qof uu la arday yahay oo isku yihiin